mudana gudoomiyay mudanayaal iyo marwooyin waxaa dhammaaday sharciyadii iyo hay-adihii federaalka Soomaaliya iyadoo 14 Abriil iyo 15 May ee sanadkan uu ku ekaa muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha federaalka waxaa nasiib darro weyn ah in aan ilaa iyo hadda oo aynu joogno 15 Juun aysan jirin wax wada hadal ah iyo heshiis siyaasadeed oo laga gaaray sidii looga gudbi lahaa xilliga kala guurka siyaasadeed ee ay galeen hay-adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka golaha xukuumadda Puntland wuxuu 22 May 2026 soo saaray in Xasan Sheekh Maxamuud loo aqoonsaday madaxweynihii hore maadaama uusan haysan sharciyad iyo heshiis siyaasadeed oo xafiiska ku sii joogo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo isugu jira dawladda Puntland dawladda Jubbaland iyo madasha samata bixinta Soomaaliyeed wuxuu juhdi badan iyo tanaasulaad geliyay sidii heshiis siyaasadeed looga gaari lahaa qabashada doorashooyin heshiis lagu yahay ee hay'adaha dawladda federaalka kuna qabsooma waqtigeeda nasiib darro waxaa arintaas si cad isu hortaagay madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud dawladda Puntland waxay kaloo soo bilaabo marka laga soo bilaabo bishii December 2022 ka digtay jihada khatarta ah ee madaxweynihii hore uu u afduubay taladii hay-adaha federaalka dalka Puntland ayaa ka hortimid qorshayaal oo Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayay inuu meesha kaga saaro hannaanka federaalka kana leexdo tubta dawlad dhiska Soomaaliyeed dawladda Jubbaland ayaa iyaduna ka biyadiiday afduubkaas siyaasadeed iyo sharci ee madaxweynihii hore dalka u jiheeyay taas oo keentay inuu meesha ka saaro hannaankii labada heer ee federaalka dalka asagoo sheegtay inuu bedelay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012 isla markaasna fargelin iyo dagaal toos ah ku haya hannaanka amni iyo maamulka gudaha ee dhammaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud asagoo uga gol leh inuu guud ahaan amniga dalka gacanta ka baxo si uu uga gaaro dana gaaban iyo masaalix waqtigeedu soo bixi doonto wuxuu si bareer ah ugu abuuray Burcad Badeed xeebaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland oo ay ogtihiin dhacdooyinka ka dhacay bilihii la soo dhaafay wuxuu horay duulaan hubaysan ku qaaday magaalada Raskamboni ee dawladda Jubbaland asagoo halkaa ku dilay muwaadiniin Soomaaliyeed iyo in ciidamadii uu khalday ay isu dhiibaan ciidamada amniga ee dalka Kenya wuxuu sidoo kale afgambi siyaasadeed iyo khalkhal amni ka sameeyay magaalada Baydhabo asagoo xoog ku muquuniyay meeshana ka saaray nidaamkii maamul iyo kala dambeyntii ka jirtay wuxuu jajuub iyo afduub iyo xarig iyo dil ku hayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan wuxuu weerar ku qaaday madaxdii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo si nabad ah ugu sugan guryahooda oo degan yihiin magaalada Muqdisho sida aad la socotaan madaxweynihii hore wuxuu hagardaamo iyo in uu fashiliyo isugu dayay kacdoonkii shacabka ee magaalada Laascaanood ka dhacay bishii December 2022 ilaa Agost 2023 asagoo markii dambana isku dayay in uu colaad siyaasadeed iyo kala qaybin bulsho dhex dhigo dadka walaalaha ah ee guud ahaan Puntland ku nool hase yeeshee garashada wanaagsan ee shacabka gobolka Sool iyo guud ahaan Puntland ayaa ka fogaaday in ay dhacaan dhagarta madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale Xasan Sheekh ayaa isku dayay inuu fashiliyo halganka ciidamada geesiyaasha ee Puntland ee muddada dheer kula jirtay cadowga argagixisada Daacish asagoo hortaagay ku sameeyay taageerada iyo saad kala duwan oo aan ka heli lahayn qaar ka mid ah saaxiibada caalamka wuxuu karoo calqaradayn joogto ah ku sameeyay diyaaradihii ciidanka ka gacan siinayay dagaalka iyo kuwii dhaawacyada dibadda u qaadayay iyadoo oo si joogto ah loogu diidayay in la siiyo ruqsadaha duulimaadka hawada Soomaaliya